dadka goobta ka maqan oo naagnahay waxna ma dhisi doonaan tolkoodana saasay isu sheegahayaan intaasna waan sheegahayaa waxaan idiin sheegahayaa annaga iyo warnowra kacaana la dhahaa maanta taariikhdu tahay 2 bishii 9aad 2022 waxaa shirkeena jaraa'id beesha iyo wararka ku saabsan yahay dhowr kolna aan uga hadalnay golihii deegaanka oo la marin habaabiyay oo wadadii saxda ahayd laga leexiyay oo wada aan sax ahayn lagu leexiyay oo dhowr kol ka hadalnay oo dad badan oo u malaynayno inay ku lug leeyihiin oo leexiyeen kala fariisanay ilaa iyo haddana aan garowsan waxaan mar labaad iyo mar saddexaad ku celinaynaa xoogaa yara dulqaadkii waa naga dhammaaday u celin mayno dadkii hore aan ula hadalnay oo madaxweynuhu ka mid yahay oo wasiirka arrimaha gudaha galmudug aan la hadalnay oo miidiyaha kala hadalnay ma u celinayno hadal dambe laba qodob kaliyaan rabaa anigu maanta inaan ka hadlo ikhyaar baa iiga dambayn doonta labadaasi waxay yihiin wasiirka arrimaha gudaha ee federaalka Master Fiqi baaq baan u jeedinaynaa hay'adda fangaraysa golaha deegaankana baaq baan u jeedinaynaa labadaasaan maanta ku koobaynaa hay'adda fangaraysa golaha deegaanka waxaanu leenahay wax dadka burburinaya ha ka qayb qaadanina hana ku tahsoominina sharcigu waa laga leexday wada qaldan baa la qaaday wax loo dhan yahay ma ahan dulum baa goli deegaanka laga galay wax dhaqaalaana ha iska bixinina ummadana ha burburinina hay'adda intaas baan leeyahay wasiirka arrimaha gudaha federaalka Master Fiqi waxaan leenahay qaylada miyaan ku gaarin mase wax danahaadan kala hayn wasiir arrintan soo farageli arrinta dulunka oo galmudug ka jirta soo farageli wasiir baad u tahay galmudug baad u tahay soo farageli ka hadal sida ugu fudud uga hadal arrintaana wadadeedu ku soo celi waxaan rabaa inta inaan ku daro haddii la iska dhiga tiro baaqa odayaasha dhalinyarada siyaasiyiinta beesha iyo wararka ay soo jeedinayaan haddii la iska dhiga tiro gacnaha kama laaba doonaan arrintaas ma ka laaba doonaan waxaan idiin sheegahayaa hadduu madaxweyne yahay iyo hadduu wasiir yahay hadda magacyadoodu waaba idhibahayaan waxaan idiin sheegahayaa annaga iyo warnowra kacaana la dhahaa wax aanaan lahayn dooni mayno wax aan leenahana qofkii ku talagalaa ma u suuroobayso taas waad ogaanaysaan intaas waxaan ku darahayaa masiirka halkan loo joogo iyo madasha dadka goobta ka maqan oo aan ognahay dadka goobta ka maqan oo naagnahay waxna ma dhisi doonaan tolkoodana saasay isu sheegahayaan intaasna waan sheegahayaa annagu xaqa aan leenahay ma daynayno ma ka harayno naloo kaga caga durbaalayn maayo wasiir ciid iyo cabdiwaayeel iyo qoorqooraa yidhi ma ku daynayno
in aan wax qaybsanno oo cid walbaaba qaybteeda qaadato oonaan is-ilhaamaysan baan diyaar u nahay haddii la diido oo qaataya qaado ay tahay ama waa la weyn ama culayskeedaba annagaa garabka saaray haddii aan layno golaha deegaanka sidii loogu talagalay oo dastuurka qorayo looma maamuusin si qaldan ayaa lagu sameeyey mana aqbalayno waxaan doonaynaa in dadkii deegaanka golaha deegaanka loogu talagalay in gacantooda lagu soo celiyo ka tashtaan ayaheeda haddii la diido oo intaas laga madax adaygo haddee madaxweynaha iyo mas-uuliyiinta ka hooseyda ayaa mas-uuliyaddeeda qaadaysa ma aqbalayno mana doonayno waxaanaan lahayn aanaan doonayn wax aan leenahay aanaan ogolayn in qolo kale qaadato inaan helno oo ka xisaabtanno oo dhulka lagu xisaabtamo oon kor loo sidana dhulka la dhigo intaasaan codsanaynaa dhibaato kale ma wadno dowladda ma diidanin dastuurka ma diidanin laakiin dastuurka iyo haddii lagu cayaaro dastuurka loo gudbo madaxda ugu sarreyda qoorqoor oo dastuurka ku dhaqmi waayo cid ku dhaqmaysaa ma jirto asagaa ilaa jabiyey beeshaani markay meelahan oo kale marayso waxa ay kala haysa ma fiirisee waxay wada fiirisaa waxa laga hayo maanta waxay fiirinaysaa waxa laga hayo oo dowdarrada looga hayo oo sharci darrada looga hayo oo gacan marooqsiga looga hayo ayay indhaha ku wada haysaa waxaan marka leenahay qolo kasta oo ay qusayso hadday siyaasi tahay hadday oday dhaqan oo meel kale ka soo xaydxaytay tahay hadduu mid kale oo laba shaarah oo criminalis oo dadka geedaha ugu jira ay tahay inay ka waantoobaan oo waxa garabka lagu soo dhulka la dhigo intaas baan horta soo jeedinaynaa waxaan kaloo leenahay dadku kicintiisu waa ay fududahay laakiin debintiisu waa ay dhib badan tahay awal haddii la kala maqnaay maanta mar haddii wixii odayaasha dhaqanka علماء الدين كبلشدة ريتك وهي أي حق حقوق دولة هايين ودلك بكرة دورانيين ما هدي قعنته ولا جبح شيء هذا وإن يمادان دتك بناك كم كان إني سوق على تكتي إن هدي لا يكون قلها إذا سوق على تكتي نينكي كستوم قلنا إنه سوق على تكتي ما علمتي بديت كأي دي جمال يسوق كين هاي مريسا